kan waa Somkanada TV habeen wanaagsan wararka caawaan idin heynana daawadayaal waxa ugu waaweyn madaxweyne Farmaajo sidee ayuu u maamulay kursiga jufradiisa ciidamada gaarka haramcad oo magaalada Beledweyne ku dilay taliyada saldhigga magaaladaasi Yuusuf Garaad oo qoraal cajiib ah ka soo saaray doorashada ka socota dalka dowladda Ingiriiska oo si kulul u cambaarisay xukun dil ah oo xukuumadda Soomaaliland ku fulisay 4 qof iyo taliyaha ciidamada Djibouti oo maxkamadda soo taagayo qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin heynay daawadayaal balse marka hore aan ku bilowno fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkeena mahadsanid sidee ayuu u maamulay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kursiga jufadiisa dad badan kuma baraarugsana kursiga tirsigiisu yahay hoob 53 oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku leedahay beesha uu ka soo jeedo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kursigan waxaa markii hore ku fadhiyay xildhibaan Faarax Cabdi Xasan waxayna talaabada koowaad ee madaxweyne Farmaajo uu qaaday ahayd inuu kursigaasi uu ka dhigo qoonda haween taasoo uu uga dan lahaa inuu gacan yarihiisa Cabdullaahi Kurani ku soo baxo kursi kale oo hoob 40 kaasoo qoonda haween ahaa oo horey ugu fadhisay Nadiifo Faarax Jaamac waxaa la shaaciyay kursiga beesha Farmaajo hoob 53 inuu yahay mid cadaalad ah oo lagu tartamayo taasi waxay keentay inuu soo jiito haweenkii ugu badnaa oo hal kursi isku soo sharaxo waxaana isku soo sharaxay 7 haween ah oo rajo ka qabay inay ku guuleystaan kursigaasi haweenkii is sharaxay waxaa ka mid ahaa Raysal Qorane Abshir Xaaji Ahmed Gaas Farxiye Cabdullaahi Sheekdoon Ubax Cabdi Cali Samsam Xasan Diiriye Fahma Cabdi Guuriye iyo Hani Cabdi Gaas nasiib daro mar kaliya ayaa wax waliba isbedeleen waxaana dib u dhac la geliyay kursigan kadibna waxaa soo baxay qorshe ah in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kursigaasi la rabo Raysal Qorane Abshir oo ay qaraabo hoose yihiin ma dhicin in gabdhihii musharaxiinta ahaa la qanciyo qarashka iyo juhdiga badan oo ka baxay laguna qiyaanay in kursiga uu furan yahay musharaxiinta haweenka ahaa ee kursiga hoob 53 qaarkood waxaa loo geystay jirdilo waxaana xoog looga saaray hoolkii doorashada ka dhaceysay iyadoo magaalada Dhuusamareeb kadib waxaa kursigaasi ku soo baxday qofkii uu watay madaxweyne Farmaajo oo ahayd Raysal Qorane cabashada oohinta iyo murugada baraha bulshada ay la yimaadeen qaar ka mid ah haweenka kursigan u tartamayay ee lahaa waana laga boobay kuwaas oo qaraabo la ahaa Farmaajo waxay bulshada bareen jufada uu ka soo jeedo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xaqiiqadiisa qofnimo iyo habdhaqankiisa qarsoon inkastoo doorashada dadban ee 2022 ay boob iska tahay oo haddana dad badan ay iska sabreen haddana urkutaalada uu kursigan reebay ayaa ahayd in haween ugu badnaa isku soo sharaxeen markii rajo la geliyay inuu tartanka furan yahay ciidamada haramcad ayaa taliyihii booliiska magaalada Beledweyne ku dilay magaaladaasi wararka naga soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in magaalada Beledweyne uu ka dhacay dagaal dhex maray ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hiirshabelle iyo kuwa booliiska gaarka ah ee haramcad iska horimaadka ayaa ka qarxay gudaha saldhigga waxaana halkaas ka dhashay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac wararka waxay intaas ku darayaan in dagaalka haramcad ay ku dileen taliyihii saldhigga booliiska magaalada Beledweyne laba xidigle Maxamed Xuseen Maxamuud oo ku sugnaa saldhigga xilliga ay dhaceysay isaasaynta u dhaxaysay labada ciidan sida aan ogaanay dagaalka ayaa ka dhashay kadib markii isfahamwa uu soo kala dhex galay labada ciidan xaaladda ayaa weli kacsan waxaana magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xooggan oo ku aadan xiisada ka dhalatay dilka taliyaha booliiska magaalada Beledweyne dhacdadan ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah waxaana jirtay in siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay hore uga soo horjeesteen ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad ee la geeyay magaaladaasi si kastaba arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli haatan magaalada Beledweyne uu ku sugan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen oo heshiis la gaaray beesha Xawaadle oo tabasho ka qabtay kadib kulamo isdaba joog ah uu magaalada Beledweyne kula yeeshay dhinaca kale Yuusuf Garaad ayaa si la yaab leh uga hadlay doorashada Soomaaliya ee socota Yuusuf Garaad Cumar ergeyga gaarka ah ee Geeska Afrika iyo badda cas iyo gacanka cadmeed ayaa soo saaray qoraal cajiib ah oo kaga hadlayay doorashada baarlamaanka Soomaaliya iyo midda madaxweynaha ee loo diyaar garoobayo Yuusuf Garaad ayaa tusaale u soo qaatay cabasho ka taagan kursiga hoob 147 oo maanta magaalada Dhuusamareeb loogu doortay Mahad Maxamed Salaad iyo guud ahaan tabashada ka taagan kuraasta kale ee doorashada Soomaaliya ayaa soo jeediyay in la aqbalo dhammaan doorashooyinkaasi sidoo kale waxa uu intaas ku daray in muhiim ay tahay in la aqbalo sida ay ku socoto doorashada haddii ay noqon lahayd xildhibaanada guuleystay kuwa harsan iyo xitaa madaxweynaha cusub oo ay dooran doonaan si looga gudbo xaaladda adag ee lagu jiro fariintan ayuu sidoo kale Yuusuf Garaad Cumar wuxuu ku sheegay in loo baahan yahay in si guud ahaaneed looga wada shaqeeyo inuu soo baxo madaxweyne la wada ogol yahay kana dhab tahay inuu horseed u noqdo sidii loogu gudbi lahaa doorasho qof iyo cod ah 4 sano gudahood qoraalka uu bartiisa Facebook ku soo qoray waxa uu qornaa sidan kursiga baarlamaanka ee tirsigiisu yahay hoob 147 musharaxiinta cabashada ka qaba sida iyaga laga yeelay iyo in suluugsan yihiin saamiga jufooyinka uu ka dhaxeeyo
kursiga waxaan u soo jeedinayaa inay aqbalaan natiijada gacanna siiyaan xildhibaanka ku soo baxay oo ah mudane Mahad Maxamed Salaad. waxaa kale oo aan soo jeedinayaa inay sidoo kale aqbalaan xildhibaanadii lagu dhawaaqay oo dhan iyo kuwa weli dhiman iyo weliba madaxweynaha ay dooran doonaan musharaxa uu noqdaba. alla aan ka barino, aan ka shaqayno, gacanna aan ka geysano in la doorto madaxweyne diyaar u ah inuu hoggaansanaado oo uu dhowro kuna dhaqmo axdiga iyo shuruucda dalka ee heshiiska ku salaysan diinta islaamka. sidoo kale madaxweyne uu mashruuciisu yahay in Soomaaliya uu u adeego, la tashado dhaqankeeda, la yimaado kana shaqeeyo inay shacabka midoobaan, kalsooni siiyaan dowladda, kalena shaqeeyaan in wadajir ah dalkan u nabadayno, horeyna u marino iyadoo lagu dul dhisayo waxaa noo qabsoomay ilaa shirkii Carto sanadkii 2000. madaxweyne suurto gelin kara in dhexdeena nabad ku wada noolaano, nabad kula noolaano dalalka kale ee gobolweynaha aan ka tirsannahay iyo dalalka caalamka oo dhan, weliba aan la yeelano iskaashi dheelitiran. ugu dambeyn aan ka shaqeyno inuu soo baxo madaxweyne ogol kana dhab tahay inuu horseed ka noqdo inaan u gudubno doorasho qof iyo cod ah. haddii taas aqoon ahaan iyo maskax ahaan lagu qotomiyo, soo afjari karta khilaafaadka hadda jira badankood. amisom uu ku dhawaaqday go-aan culus oo magaalada Muqdisho ku saabsan. taliska midowga Afrika amisom ayaa war ka soo saaray weeraradii qaraxyadii habeen hore ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. waxay si kulul u cambaarisay weeraradaasi ay sheegteen kooxda Al-Shabaab, isla markaana dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur. howlgalka amisom ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay ka go-an tahay inay xoojiyaan taageerada ay siiyaan Soomaaliya ee ku aadan dagaalka Al-Shabaab si looga adkaado. sidoo kale amisom ayaa sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay halis weyn ku tahay horumarka dalka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed. midowga Afrika waxaa ka go-an inuu taageero Soomaaliya si looga adkaado argagixisada oo burbur ku ah dhaqaalaha, dhaqanka, siyaasadda iyo nolosha bulshada, ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay amisom. hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo haatan qalqal amni laga dareemayo magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyay martigelinaysay qaraxyo iyo dilal qorshaysan. si kastaba arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli haatan dalka uu ku jiro xaalad kala guur ah iyo marxalado doorasho oo aada loogu daahay kadib isku qabsi badan oo ka dhacay doorashooyinka. taliyaha ciidamada booliiska Jabuuti oo maxkamad la soo taagayo. wararka imaanaya dalka Jabuuti ayaa waxay sheegayaan in taliyaha ciidanka booliiska dalka Jabuuti Korneyl Cabdulaahi Cabdi Maxamed la soo taagayay dhowaan maxkamad, sida uu BBC-da laanteed afka Soomaaliga u sheegay. Korneyl Cabdulaahi oo hore xabsi guri ugu jiray ayaa haatan lagu xiray xabsi goobaad. wararku waxay sheegayaan in taliyaha iyo rag kale loo haysto sir laga faafiyey qoyska madaxweyne Geelle, hase yeeshee ilaa hadda lama shaacin cidda bixisay amarka lagu xiray taliyaha. sidoo kale taliyaha waxaa lagu haystaa sir laga faafiyey wasiirkii hore miisaaniyadda dalka Jabuuti Boode Axmed Rooble. dowladda Jabuuti ayaa sheegtay inay bilowday baaritaan ku aadan codad lagu baahiyey baraha bulshada oo ay ka dambeeyeen kooxo. war-saxaafadeed ka soo baxay xeeralyaha dalka Jabuuti ayaa lagu sheegay in arrintan ay ku lug leeyihiin saraakiil ay ka mid yihiin taliyaasha guud ee booliiska iyo wasiirkii hore miisaaniyadda dalkaasi. xeeralyahu waxa uu sidoo kale sheegay in sharciga la hor keeni doono cid kasta oo si toos ama si dadban uga qayb qaadatay faafinta codadka sirta ah. hase yeeshee dowladda wax faahfaahin kama aysan bixinin waxaa ku saabsan yahay codadka laga baahiyey baraha bulshada ee loo xiray saraakiishan. warkii oo aad kala socoteen Som Kanadana daawadayaashana qiimaha badan caawa waa naga intaas.